munaasabad lagu xusayo kontoniko guuradii kasoo wareegatay markii Soomaaliya ay xornimada ka heshay gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur oo ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay caasimadda Kuala Lumpur ee Malaysia. Munaasabadaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid gobolada Malaysia. marti sharaf kala duwan oo ay ku jireen ajaanib iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Indonesia Safiir Maxamuud Colow ayaa lagu casuumay goobta xafladda ka dhaceysay. hadallo kooban oo laga jeediyay ayaa ugu horeyn siyaasiga Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Yaasiin waxa uu ka hadlay qaran waxa uu ku dhisan yahay. qaran afar tiir uu ku taagan yahay. tiirka hore waxa weeye hoggaan toosan. tiirka labaad waxa weeye maamul wanaagsan oo cadaalad ku dhisan. tiirka saddexaad waxa weeye nabad. tiirka afraadna waxa weeye waa horumar. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu tajrubo ahaan nagu baray sunnada ilaahay. markii hore wuxuu dhisay ilaahay wuxuu dhisay hoggaan buu sameeyey. intuusa dowlad islaama dhisay maka hoggaan baa laga dhisay. hoggaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala markii la dhisay waxaa la keenay nidaam cadaalad ku dhisan baa Madiina laga dhisay. nidaamkii wuxuu keenay nabad buu keenay. nabadii maxay keentay horumar bay keentay. dhanka kale Dr. Maxamed Xuseen oo kamid ah dhaqaatiirta qurba joogta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku sheegay goobta dhibaatooyinka ay Soomaalidu kala kulmeen qurbaha oo uu ku tilmaamay inay u tahay khibrad ay ka qaateen. dadka qurba joogta xariiriyan dhibaatooyin badan baan la kulannay. dad aan yarayn baa dhibaatooyin soo gaareen. dad badan oo iyaguna wax ka faa'iiday waa jiraan. laakiin markii la isu geeyo xariiriyan قربين لتجي ضد وحبايك أركان ويعني أركان دقن كلا أركان تعليم كلا أركان أنت ما أنت مركز كل كنت برسول الله وحشكل هاي أنت أصحابها تكتي إن السوسة إن السوء ويعني نما يسكين السائدة أولك وقبل كلام. ugu dambeyntii safiirka Soomaaliya u fadhiya Indonesia Safiir Maxamuud Colow oo khudbad dheer ka jeediyay goobtaasi oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa kula dardaarmay ardayda Soomaaliyeed inay ku dadaalaan midnimada aqoonta ay barteen ay kula laabtaan dalka maadaama wadanku u baahan yahay aqoon-yahano samata bixiya ummadda Soomaaliyeed. waxa uu goobtaasi kaga gudoomiyay hadiyad uu gudoonsiiyay gudoomiyaha midowga ardada Soomaaliyeed Injineer Cabdisalaan Maxamuud. dadka Asia ku bartay gudaha iyo banaanka Soomaaliya markay baasaboor Soomaaliya leeyahay waxaan idin rajaynayaa meesha cabsi badan ma jirto. waa lagu noolyahay ragii Mareykanka 20 sano ku noolaa idinka cabsi badnaa ayaa tagay. wadanka waa idin baahan yahay, wadanidiinu u baahan yahay, aqoontiinu u baahan yahay. ina wadanka wuxuu u baahan yahay honest وباهنا من نظيفة ومباهنا أقوياً قبيل وشقيناي ومباهنا أقوياً قبيل وشقيناي ومباهنا أقوياً ربا جيب كيسة لي وحقلان قريب كتير ومباهنا هاي أقوياً هو هاي أمور نفتيس مركب حالين رجعنا يا هو هاي أرضية وحكوبرة هل شيء كنا من ماذا كنت داشان وحيابها قبائل كنا أسكت دفتان ونسيب دهروا نبدأ نيرا وجامعات دينا هي إنه كفكروا قبيل وقرن قبيل هذه لجا شقيانا دولة من مجريسو ماشي عن كل جرنا كما بحين مركا إن محوها هاي النقطان horseedaha ummadda Soomaaliyeed aad noqotaan kuna dadaashaan inaad focus saartaan waxa aad baranaysaan Soomaaliyeed dib ugu noqotaan. Soomaaliya waa idin baahan tahay. ummad waliba waxa ay leedahay munaasabad u gaar ah taasoo ay xusaan xilligeeda. munaasabadahaasi ayaa waxa kamid ah mid shakhsiyeed, mid qoys iyo mid qaran. munaasabada kooda Luuli ayaa Soomaalida dhamaantood ay xusaan meel walba adduunka ay ka joogaan iyadoo ardada Soomaaliyeed ee ku nool Malaysia ay xusaan sanad waliba ayagoo isku keena dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Malaysia. Saciid Cumar, Universal TV, Kuala Lumpur, Malaysia.